afhayeenka aqalka Koongareeska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay inay qorsheynayso inay booqato dalka Armenia dhammaadka toddobaadkan si ay u xaqiijiso sida ay Washington uga go'an tahay amniga iyo dimuqraadiyadda Armenia halka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ugu baaqay Armenia inay joojiso dandaasiga ka dhanka Azerbaijan. Hadalladan uu midba dhinac taageerada u muujiyay ayaa imanaya kadib markii xabad joojin ay ka dhaqan gashay meelihii ay ku dagaalameen toddobaadkan dalalka Azerbaijan iyo Armenia kadib dagaallo xooggan oo dalalkan ku dhex maray gobolka Nagorno-Karabakh kaasoo sababay dhimashada ku dhowaad 200 oo askari oo labada dhinaca. Pelosi ayaa sheegtay inay xaqiijin doonto taageerada Mareykanku u hayo dowladda Armenia iyo arrinta ku aadan xalinta colaadda gobolka Nagorno-Karabakh. wakaaladda wararka AB oo soo xiganaysa Pelosi ayaa sheegtay inay booqan doonto dalka Armenia iyadoo hogaaminaysa wafdi ka socda Koongareeska Mareykanka oo uu ka mid yahay Jack Speer oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Armenia. dhinaca kalena madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maanta ka hadlayay gabagabadii shirka iskaashiga Shanghai ayaa ugu baaqay Armenia inay iska dhaafto dandaansiga ay ku hayso Azerbaijan ayna diiradda saarto nabadda iyo iskaashiga ayna u dhaqanto si waafaqsan heshiiskii horey arrintaasi looga gaaray. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa racfaan ka qaadatay go'aan maxkamadeed oo looga hortegayo in dib u eegis lagu sameeyo dukumentiyada sirta ah ee ay FBI-du Mareykanku ka soo heleen baaritaankii ay ku sameeyeen guriga madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ku yaala gobolka Florida. baarayaasha federaalka Mareykanka ayaa looga hor istaagay inay dib u eegaan kumanaan dukumenti oo ay FBI-du guriga madaxweyne Trump ka soo heleen kadib markii garsooruhu uu la saftay madaxweynihii hore Trump oo uu go'aansaday inuu u magacaabo garsoore ka madax bannaan waaxda cadaaladda Mareykanka. wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in garsoore Ileen uu ku khaldanaa magacaabista kormeere gaar ah oo dib u eegis ku sameeya siraha qaran ee laga soo helay guriga Trump. wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay inay xadidayso 1,000 diiwaan oo sir ah oo laga helay guriga Trump oo aan loo ogolaan doonin qof kasta inuu arko isla markaana aan bulshada loo bandhigi doonin maadaama sirahaasi ay yihiin kuwa xasaasi ah. dhinaca kalena madaxweynaha Qubrus Nicholas ayaa soo dhoweeyay go'aanka Mareykanku uu cunaqabatayntii hubka saarayd jasiiradaasi labada u qaybsan uga qaaday cunaqabatayntaas oo saarayd tan iyo sanadkii 1970. madaxweynaha Qubrus oo arrintan ka hadlay waxa uu yidhi kani waa go'aan taariikhi oo ka tarjumaya xiriirka istiraatiijiyadeed ee sii kordhaya ee labada dal oo uu dhinaca ammaanku ku jiro. wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiguna iyaduna waa ay cambaaraysay go'aanka Washington cunaqabataynta hubka ay uga qaaday Qubrus. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu qaadi doono xayiraadda ganacsi ee hubka ee Qubrus saarayd. dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay bixiso 300,000 oo tan oo ah maadooyinka bacriminta beeraha loogu talagalay, waxaana dowladda Ruushku ay sheegtay in maadooyinkaas ay siinayso dalalka soo koraya weliba ay ku siin doonto si bilaasha. maadooyinka bacriminta beeraha ayaa hadda lagu xayiray dekedaha midowga Yurub sababo la xiriira cunaqabataynta reer galbeedku saareen Ruushka sida uu sheegay madaxweyne Putin oo ka hadlayay shir madaxeedka ururka iskaashiga Shanghai ee dalka Uzbekistan ayaa sheegay inuu xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres kala hadlay arrimaha ku saabsan maadooyinka bacriminta beeraha ee loogu talagalay dalalka soo koraya oo uu weliba ku wargeliyey in 300,000 oo tan oo bacriminta Ruushka ah ay haatan yaalaan dekedaha midowga Yurub. madaxweyne Putin ayaa intaas ku daray in Russia ay diyaar u tahay inay si bilaash u siiso dalalka soo koraya si ay gacan uga geystaan yaraynta dhibaatada cunto yari ee dunida ka jirta. Ukraine iyo Ruushka ayaa horay u saxiixay heshiis lagu furayo dhoofinta qamandiga Ukraine ee la sii marinayo badda madow wadahadal ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysa oo ka dhacay Istanbul. heshiiska ayaa sidoo kale la filayay
inuu u oggolaado Ruushka inuu dhoofiyo agabka bacriminta iyo badeecadaha cuntada suuqyada adduunka. laakiinse saraakiisha Ruushka ayaa marar badan ku eedeeyay reer galbeedka inaysan ixtiraamin heshiiskii lagu gaaray Istanbul.